بسم الله الرحمن الرحيم إثيوبيا أو كسو يري هذا الكي وجهري الحريرة موقف كده أقوسك إسرائيل سومالي لان هذا محوي هي أركتديدو وحردي هينا وربحين أمورتني كو آدن بدو يوروب أو إسنا سعد وشيغي موقف كيس كو آدن أرمها أقوسك إسرائيل سومالي لان مدحوين بوتين وسعد وجوهن جبي إن هدي يوكرين أي ديدو nabad ruushku uu ku xallin doono colaadda tillaabooyin military hogaamiyaha military ee Suudaan General Al-Burhan oo ku dhawaaqay shuruudo cad oo la xiriira dagaalka ciidankiisa ay kula jiraan kuwa RSF sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay mid ka mid ah wadamada Yurub ayaa bilaabay in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo tababar ciidan isla markaasna lacag lagu siinayo maxay tahay sababtu waa idin faahfaahin doonaa dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaa soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan uga xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa waxaynu ku bilaabaynaa dhankaas iyo magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka madaxweyne Vladimir Putin ayaa sheegay in haddii Ukraine aysan doonayn xal nabadeed Moscow dhammaan dhibaatooyinka ay ku xallin doonto awood ciidan isagoo ku faanay in ciidamada Ruushku ay sameynayaan horumar degdeg ah waxaana uu ka hadlay ama hadalkan uu ka jeediyey xarunta talis military Putin waxa uu sheegay in wadamada reer galbeedka qaarkood ay kula talinayaan Kiev inay aqbasho shuruudo macquul ah si dagaalka loo soo afjaro balse wuxuu ku eedeeyay hoggaanka Kiev inuusan si degdeg ah u doonayn xal nabadeed Putin ayaa ku adkaystay sheekada Ruushka ee ah in dagaalka uu ka dhashay xaaladii siyaasadeed ee Ukraine ka dhacday isagoo sheegay in Moscow horey ugu baaqday Kiev in dadka Donbas ay siiso xaq sharci ah oo ay ka tashiya ha yeeshee Ukraine ay dooratay jidka dagaalka waxa intaasi uu ku daray in Ruushku uu hadda isku dayayo inuu soo afjaro dagaalka Kiev ay bilowday wuxuuna ku andacooday in howlgal military uusan dhici lahayn haddii Ukraine ay dhageysan lahayd dalabaadka Moscow Putin waxa uu sheegay in rabitaanka Ruushka ee wadahadalada military iyo soo noqoshada ay hoos u dhacday isagoo markaasi daliil uga dhigay dhaqaaqyada degdega ah ee Ruushka wuxuuna sheegay in ciidamada Ruushka ay kordhinayaan cadaadiska dhammaan jihooyinka dagaalka isla markaasna ay qabsadeen dhowr magaalo oo muhiim ah dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka waa wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Ryabkov ayaa sheegay in dejinta waqti xadidaysan oo wadahadal lagu gaaro aysan waxba ka tari doonin xal siyaasadeed oo la gaaro isagoo intaasi ku daray in mustaqbalka Ukraine weli su'aal ay dul hooganayaan dagaalkuna uu socdo xagga Afrika iyo dagaalka Suudaan haddii aynu qoraansano hogaamiyaha military ee ku meel gaarka ee dalka Suudaan Abdul Fattah al-Burhan ayaa daboolka ka qaaday in Khartoum aysan ogolaan doonin xabad joojin ama heshiis nabadeed inta ciidamada gurmadka degdeg ah ee loo yaqaan RSF ay joogaan hal taako oo ka mid ah dhulka waddanka Suudaan General Al-Burhan wuxuu xoog saaray in qariirada wadada ee dhawaan loo gudbiyay qaramada midoobay ee uu soo bandhigay ra'iisul wasaarihiisa Kamil Idris ay tahay hindisa qaran oo ay dowladda Suudaan ogolaatay isniintii Idris wuxuu hortagay golaha ammaanka ee qaramada midoobay isagoo soo bandhigay qorshaha xabajoojin guud ka bixitaanka RSF ee meelaha ay gacanta ku hayaan iyo in dagaalyahanada la ururiyo isla markaasna la bilaabo wadahadallo Suudaan dhexdeeda iyo isu soo dhawaansho dib u dejin dadka rayidka ah si kastaba ha ahaatee RSF ayaa diiday hindisahan iyadoo ku tilmaamtay hadal duug ah oo lagu takoorayo isla markaasna aysan arkin wax dhab ah oo ku saabsan arrimo nabadeed Idris ayaa sidoo kale sheegay in haddii xabajoojin ay dhici weydo ay lama horaan noqonayso in hubka dhigis lagu sameeyo RSF lana geliyo xeriyo gaar ah isagoo ku nuuxnuuxsaday in Suudaan ay tahay dal madax bannaan isla markaasna aysan aqbalayn ciidamo cusub oo qaramada midoobay ka socda wuxuu sheegay in hindisuhu inuu cadeynayo in dowladda Suudaan u ololeynayso nabad halkii dagaal laga sii wadi lahaa Suudaan ayaa tan iyo bishii Abriil 2023 waxa ay ku jirtay
dagaal u dhaxeeya militariga dowladda iyo kuwa RSF waxaana la sheegay dagaaladaasi in ay sababeen dhimasho iyo dhaawaca kumanayaal qof halka 13 milyan oo qofna ay ku barakaceen colaadaha waddanka Suudaan. haddaba arrinta Suudaan ayaa waxay markaa u muuqanaysaa inay ka sii darayso maalinta ka dambaysa. hindisihii nabadda ee ay soo bandhigeen mas-uuliyiinta Khartoum garafka ay ku dhuftay hogaamiyaha militariga ee waddanka Suudaan waa hogaamiyaha RSF isagoo diidan in gabi ahaanba ay hub ka dhigaan xabadana ay joojiyaan. waxaana tani ay ku soo aadaysaa iyadoo RSF dhul ballaaran oo ku yaala Kordofan iyo weliba Darfur ay gacanta ku dhigeen. waa hagaag waxaan u gudbaynaa goordhow Ethiopia oo markii ugu horeysay hadal ka soo saartay aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland. inta aan u gudbin wararkaas iyo weliba qodobo kale aynu ku hakanno maha aqoonsiga Israa'iil iyo Somaliland haddii aynu ku sii soconno waxaynu eegaynaa markan war ka soo baxay wasiir ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. wasiir dowlaha wasaaradda warshadaha Ethiopia Tarekan Baluto Godana ayaa ku tilmaamay aqoonsiga Israa'iil ay siisay Somaliland inuu yahay tilaabo diblomaasiyadeed oo muhiim ah oo saameyn ku yeelan karta mustaqbalka siyaasadeed ee Geeska Afrika. qoraal kooban oo soo dhigay baraha bulshada ayuu waxa uu ku sheegay in tilaabadan ay noqon karto sida uu yiri mid hagi doonta jihada mustaqbalka gobolka isla markaasna muhiim ay noqon doonto in si dhow loola socdo saameynta siyaasadeed iyo midda amniga ee ka dhalan karta. wasiir dowlaha ayaa sidoo kale ku sheegay hadalkiisa in arrintani ay tahay war u wanaagsan shacabka Somaliland taasi oo ka dhigan taageero muuqata oo muujinaysa in mas'uul Ethiopian ah uu taageerayo arrintan sida ay tilmaameen falanqeeyaashu. hadalkan ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo gobolka Geeska Afrika ay ka jirto doodo iyo falcelin culus oo ku saabsan xiriirka Israa'iil iyo Somaliland iyo saameynta tilaabadan ay ku yeelan karto xasiloonida gobolka. waa hagaag inta marka laga gudbo ilaa iyo shalay markii ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu ku dhawaaqay aqoonsiga Somaliland warar kala duwan baa ka soo baxaya warbaahinta Israa'iil waxaana ka mid ah in bishii Oktoobar madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirre uu socdaal qarsoodi ku tagay Israa'iil. telefishinka Kanal 12 ayaa warkaasi sheegay. sidoo kale warbaahinta Israa'iil iyo wariyaal ka mid ah iyo dadka arrimahan falanqeeya Israa'iiliyiinta ayaa iyaguna arrintaasi qiray. laakiin arrintan waxaa markii ugu horeysay si dadban u qiraya wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil. haddaba haddii aynu eegno hadalkan wuxuu soo dhigay iyo sawirkan isla socda bartiisa Facebooka. wuxuu yiri sawiradii farxadda lahaa ee xalay aynu ku aragnay wadooyinka Somaliland ayaa rajo abuuraya mustaqbalka. waxaan si wadi doonaa inaan si wadi jira uga shaqeyno xoojinta iskaashiga iyo saaxiibtinimada ka dhaxaysa dalkayaga iyo qowmidahayaga. sawirka madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo aniga ayuu ku qoray wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Gideon Saar. ma jiro war rasmi ah oo arrintan la xiriira oo dhanka Somaliland ka soo baxay marka laga tago warbaahinta Israa'iil iyo hadalkan uu soo dhigay wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil. waa hagaag isla arrimahan haddii aynu ku sii soconno midowga Yurub ayaa iyaguna waxay caawa soo saareen bayaankan ayaa waxay ku sheegeen inay ku celinayaan taageerada xooggan ee ku aadan midnimada madax banaanida dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyadoo mowqifkan uu waafaqsan yahay baa la yiri dastuurka Soomaaliya iyo qawaaniinta ururka midowga Afrika iyo qaramada midoobay. midowga Yurub waxay sheegeen inay ixtiraamka mabaadi'da ay dan muhiim u tahay nabadda iyo xasiloonida guud ee Geeska Afrika. sidoo kale bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay in midowga Yurub uu dhiirigelinayo wada hadallo miro dhal ah oo dhexmara dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland sida bayaanka lagu yiri si nabad ah oo wax dhisid leh loogu xalliyo khilaafaadkan muddada dheer taagna. waaga warkaasna wuxuu ka soo baxay midowga Yurub goor dhaweyto. wararkaas wuxuu ku soo kordha waynu arki doonaa. imika waxaan u gudbaynaa sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabay jirnay. waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen muddooyinkan
yurub waxa aad uga jira dhiilooyin colaadeed hub urursi cabsi weyn oo laga qabo dagaal yurub ay la gashay ruushka iyo arrimo caynkaasi oo kale ah haddaba waddanka britain ayaa waxaa la sheegayaa in hadda la dhiirigelinayo dhalinyaradu inay qaataan tababar military oo weliba lacag lagu siiyo haddaba sheekadan haddii aynu eegno wasaaradda difaaca ee britain ayaa ku dhawaaqday barnaamij tijaabo ah oo bilaabanaya bisha march ee sanadka soo socda kaas oo dhalinyarada ka yar 25 jirka u saamaxaya inay galaan hal sano oo tababar ciidan ah oo lacag lagu qaadanayo inta lagu sugan yahay hawlaha ciidamada qalabka sida si loo kordhiyaa la yiri xiisaha ku biirista ciidanka marxaladda koowaad barnaamijkan wuxuu qaadanayaa 150 qof oo iska wax u qabso ama tabaruc u shaqayn doona iyadoo marka dambana la balaarin doono oo in ka badan ilaa iyo 1,000 ay ka qayb gali doonaan wasiirka ama xogeyaha difaaca ee Britain John Healey ayaa sheegay in hindisahan uu yahay dadaal lagu xoojinayo xiriirka bulshada iyo ciidamada ka qaybgalayaasha ayaa heli doona tababar ciidan oo cirka dhulka iyo badda ah inkastoo weli aan la shaacin qadarka mushaarka la siin doono dowladda Britain ayaa sheegtay in barnaamijkan dhalinyarada uu siin doono xirfado iyo waayo aragnimo muhiim ah xilli khibradu ay ka digayaan qataraha ammaan ee soo kordhaya ee dunida yurub wax badan bay nabad ku sugnayd laakiin markan dhiilo colaadeed ayaa dhinac kasta ka yeeraysa hub urursi jarmalku ciidamo xoogan bilaabay dhaqaalihii oo leeyahay waa in inta badan la geliyaa ciidan iyo sidoo kale diyaar garow dhammaan arrimo kala duwan oo xaaladahan la xiriira ayaa ka taagan wadamada yurub waynu arki doonaa wixii arrimahaasi ku soo kordha inta ayaan ku soo gabagabeynayaa caawa barnaamijka qubanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan uga xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa